Hargeysa waxay caasimadu tahay 6 gobol oo kamid ah Soomaaliland muddo 28 sano kadib ayaa laga joogaa xilligii ay gooni isu taagto ay ku dhawaaqday madax banaanideeda. Dakhliga Soomaaliland soo gala waa kuwa aan si toos ah loogu dayactirin bilicda caasimada. Halkani waa halbowlaha bridge-ka weyn ee isku xidha madaarka iyo aqalka madaxtooyada. sidaad wada arkaysaan wadada hareeraheeda waxa isbuuciye kumanaan camuud oo wasaqaysan oo ay iska soo riixeen taayirada baabuurta maraysa. intii ay saaka warbaahinta nolosha islaamku ay ku awleneed sidii wax loogu qaban lahaa xaaqida camuuda fadhiisatay wadooyinka hareeraheeda. waxaanu arkaynaa kumanaan dad oo la dhibaataysan marista wadadan maadaama aan lagu socon karin. ugu dambeyn waxaa nasiib daraa in bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyaro iyo waayeeliba ay gabeen xaqii uu ku lahaa kooda inay iska xaadhaan oo ay nadiifiyaan wadooyinka iyo waliba goobaha la wada leeyahay iyagoo aan ku daaweynin dawladooda. warbaahinta nolosha islaamku waxay ballan ku qaadaysaa haddii bulshada iyo dawladda hoose ee Hargeysa ay muddo 15 maalmood gudahooda ay ku xaadhi waayaan camuuda wasakhaysan in warbaahintu ay isu xilqaami doonto nadiifinteeda haddii alla idmo.